ممثلين aan isleenahay waa ku filan yihiin ay xamar nala joogaan waxaan kulligood u sheegnay inaan arrinka halkaan ku dhamayno cid naga maqan oo galmudug jirta hadday jirtana aan u cidirsano ay noo yimaadaan oo hoos nagala qayb galaan nasiib darro shalay iyo maanta labadii dhinac oo aan rabnay inay arrinka ka qayb qaataan ayaa qolna shala baxday qolna maanta baxay arrinkaas marka xoogaa waa adkeeyey runtii hawshii aan wadnay waxaan rabaa inaan sheego inaan wasaarad ahaan ka xunnahay in dadkii mas-uuliyiinta ka ahaa galmudug oo aan rabnay inay ayagu dadka ay mas-uulka ka yihiin iyo degaanka dhibaatadooda ayagu ay usoo istaagaan oo ay ku filaadaan oo ay xaliyaan dhibtoodii markay intaas jiitantay annaguna aan soo galnay inay uga tagaan meel aanaan runtii isku ogeyn waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhinacyada galmudug oo dhan wixii tabasho qaba gaar ahaan labada dhinac oo aan hadda maalmahan wada hadalka la wadnay inay ku soo laabtaan xamar inaan arrinkaas ka wada hadalno xalna laga gaaro haddii ay dhacdo in arrinkaas soo noqoshadaas la waayo oo laysu imaan waayo waxaan rabaa dhinacyada inaan ku baraarujiyo halkii maalin oo la kala maqnaadaba dhibaatadu sii badan doona waxaa xalku ku jiraa iyo wanaagu danna u ah galmudug iyo dadkeeda iyo degaankeeda inaad isu timaadaan oo aada wada hadashaan annaguna waxaan diyaar u nahay inaan dhexdhexaadin iyo isu jiijid wixii aan samayn karno aan sameyno waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dhinacyadaas waxaan iclaaninay 30 bishaan oo ay naga xigtay 3 maalmood in la isugu soo laabto xamar oo arrimahaas la bilaabo waxaan jecelnahay inaad nala garataan oo aad nala wadaan arrinkaas dib u heshiisiinta ah haddaanan isugu iman arrinkan oo aanaan ka wada shaqayn qof walba wuu khasaari doonaa qof ka faa'iidi doona ma jiro waxaan idinka codsanaynaa inaad ku baraarugtaan muhiimadda arrinkaan leeyahay aynaan ku dhegin arrimaha aad isleedihiin siyaasad ahaan ama dar ahaan ay idin cuslaynayaan arrinkaas waxaan rabaa inaan intaas uga baxo waxaan kusoo gabagabeynayaa mas-uuliyiinta galmudug fadlan ku baraaruga mas-uuliyadda aa haysaan dhibaatada ka jirta degaankaas iyo maamul goboleedkaas maanta wax khilaafaad xamili kara ma aha waxaan rajaynaynaa inaad intaas nala qaadataan waxaa idin soo gaari doona isla maantaba ama saacad gudaheed ba idin soo gaari doona haddaysan hore idin soo gaarin xiriir qoraal ah oo aan idiin soo dirnay oo aan ku dalbanayno in la isugu yimaado shirkaas la isugu soo laabto bisha 30keeda waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idin rajaynayaa inaad garataan waxa danta u ah galmudug degaankeeda iyo dalkeeda oo maadsanta haddii wasiir xilliga aad qorshayseen wax ku dhici waayaan oo labada dhinac ay imaan waayaan muqdisho ama ay wada hadalba diidaan dowladdu maxaa kale oo tallaabo ay qaadaysaa wallaahi kuma habboona hadda inaan hormarino haddii arrinku shaqayn waayo wax aan yeeli doono kuma fiicno ma caawinayso xalka dadka waxaan noo ka shaqaynaynaa wasaaraddii u heshiisay inaydaan nahay mar walbaba inaan waxa wax isu dhaweynaya ka hadalno ayaa maaragtay dantu ku jirtaa kaa haddaad yeeli weydo kaasaan yeeli doonaa kaa aan yeeli doonaa hadduu xalleeyo oo wixii meeshii ku xirmaan dhibaatay noqon doonta marka waxaan jeclahay arrinkaa waa la gaari doonaa muddaduna maba dheera codsiga aan ka codsanay inay naga aqbali doonaan aan rajaynaynaa wixii kaloo tallaabaha ku habboon ama wadajir u qaadanayno ama haddiina la maqli waayo annagu wasaarad ahaan ama dowlad federaal ahaan aan qaadan doono waa sugaynaa insha allah